Guddida taakuleynta abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa waxay maanta si rasmi ah ula wareegeen deeq raashin ah oo dhan 500 oo qoys taasoo loogu talagalay in loo qeybiyo dadkii iyagu waxyeeladu ka soo gaadhay duufaantii ku dhufatay xeebaha gobolka Awdal. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay markaana ka warbixiyay deeqdani. Waxay ka qayb qaadanaysaa gargaarka iyo tabaruca loo fidinayo dadka dhibaatada soo gaadhay. waxaana kaga qayb qaadanaysaa raashinka muuqaalkiisa adarkasaan oo ka kooban 500 oo qoys. Dhinaca kale guddida taakuleynta abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa ka mahad celiyay deeqdan la soo gaarsiiyay ayaa waxay sheegeen gaadiidka ay soo direen oo raashin u saaran yahay 500 oo qoys oo kana kooban inta ay tam ee uu sheegay ninkii waday waanu kala wareegnay raashinka isla goobta aan kaga wareegnay waxaan ku wareejiyay aniguna raashinkaasi guddida gobolka ee loo magacaabay taakuleynta musuubooyinka iyo aafooyinka dhacay. Sheekh Cabdullaahi waan kala wareegnay raashinka 500 qoysa jazaakumullahu khayran ilaahay miisaanka xasanaanka inay ugu daro raashinka 500 qoys ah oo ay ugu tala galeen in ay kaga qayb galaan taakuleyntii loogu jiray dadkii ay musiibadii rabbaaniga ahayd ee dabayluhu ee xeebaha galbeedka ay ku dhufteen aad iyo aad baan uga mahadnaqnaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ilaahay khayr ha ka siiyo miisaanka xasanaadkana ha kuugu daro maadaama aad u damqatay walaalaha oo aad maanta garatay inaad mucaawanada soo gaadhsiisid sidaa lagaaga guddoomay baanu kaaga guddoomay waananu kuu mahadnaqnaa oo run ahaantii la qaybsanaysa damqashada dadkaa dhibtu soo gaadhay gargaarkaa u soo fidisay runtii waa mid loo baahnaa waa mid ganacsatada kalena aan leenahay ha ku dayato annagu goobjoog baanu ka nahay markhaatina waanu ka nahay inay 600 ay tamadii waliba uu sheegay timirtu ilaabay timirtaanu waliba aragnaa ka saamariyo ilaahay meesha ku soo saarana wax khayr ah ugu bedelo waanu ducaynaynaa. Si kastaba haatee waxay soo taraysa gurmadka kala duwan ee la soo gaarsiinaya dadkii iyagu ku waxyeeloobay duufaantii sagar ee dhawaan ku dhufatay xeebaha gobolkan Awdal. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka caalamiga BC 24 TV, magaalada Boorama.